Wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada halkan waa janalkeena runta wararka qodobada wararkeena aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqon doona loolanka xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo cidda loo dooran doono oo weli Muqdisho si weyn loogu diyaarinayo waxgaradka warshiiq oo digniin culus ka bixiyay shirkadda macsan Bob maxay tahay shirkadaasi wararka ugu dambeeyay ee khilaafka ka dhex taagan Siciid Dani iyo Axmed Cilmi Karaash iyo xaaladda guud ee Garowe ayaan daawadayaal warkeena kusoo qaadan doonaa sidoo kale warkeena waxaan idinkugu soo gudbin doonaa daawadayaal dhibaatooyinka kala duwan ee haatan ay la kulmayaan madaxda koonfur galbeed iyo galmudug wararkaasi warar kale oo xiiso badan ayaa warka idinkugu soo gudbin doonaa haddaba daawade haddii aad janalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janalka wararkeena leega shaarkii iyo commentiga noogu dadaala aan ku bilaawo loolanka xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa weli ka soconaya Muqdisho waxaa hoteelada waaweyn ee Muqdisho iyo madaxda degan ay yihiin kuwa si weyn dadaalo xoogan ugu jira inay helaan xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya siyaasiyiinta xiriirka kala duwan ka soo qabtay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa mid waliba waxa uu orod ugu jira sidii uu ku heli lahaa xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xog ay heshay warbaahinta runta ayaa waxa ay sheegayaan in ay markan ay diyaar u ahayeen magacaabista ra'iisul wasaaraha dadka kalena ay mas'uuliyiinta ka soo jeeda sidii ra'iisul wasaarihii ee Soomaaliya ay ku noqon lahaayeen shakhsiyaad fara badan waxaa xusud mudan in madaxweyne xasan sheekh uu sheegay in wadatashi kadib isaga kaliya uu soo magacaabi doono ra'iisul wasaaraha uu aamini karo isagoona doonaya in uu wax waliba ay si fudud ugu soo gabagaboobaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa rajadiisa iyo riyadiisa waxay tahay in ra'iisul wasaare si fiican ay isku fahmi karaan isla markaana dalkan horumar ballaaran gaarsiin kara in uu soo magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa waxaa loo saadaalinayaa shakhsiyaad ka soo jeeda deegaanada Puntland iyo Jubbaland inkastoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si weyn looga sugayo soo magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka haddana wararka ayaa waxay sheegayaan inay macquul ay tahay in go'aanka Siciid Dani uu taageero madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Siciid Cabdullaahi Dani hogaamiyaha Puntland ayaa si weyn wax uu dadaal iyo juhdi ugu bixinayaa in uu ra'iisul wasaare loo soo magacaabo shakhsi isaga si weyn ay isku aaminsan yihiin inkastoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu kulamo kala duwan uu la qaadanayo waxgaradka beelaha kala duwan ee ku sugan magaalada tani caasimadda ah ee Muqdisho wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in hogaamiyaha Jubbaland qudhiisa uu tafaxiidasho ugu jiro si shakhsi ka soo jeeda beesha ogaadeen loogu magacaabi lahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya balse sanadkan waxaa meesha ka baxday miisaaniyadda beesha Mariixaan iyadoo ogaadeen iyo majeerteen ay ku tartamayaan kursiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh ayaana laga dhursugayaa cidda uu magacaabi doono ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dhanka kalena daawadayaal waxgaradka degmada warshiiq ayaa digniin culus ka bixiyay shirkadda macsan Bob qayladhaan ayaa ka soo yeertay dadka shacabka ee degmada warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe kadib markii xubno ka tirsan Hirshabelle oo wakiil ka ah shirkada ay tageen degmadaasi iyadoona ujeedkooda ay tahay in uu sifo sharci darro ah ay kula wareegaan boosaska dadka shacabka ay leeyihiin oo ku yaala xeebta degmada iyo agaaradeeda sida aan helnay wararku waxay sheegayaan in dadka deegaanka maamulka Hirshabelle uu hogaamiye Cali Guudlaabe in uu wax ka qabto kooxdani ay sheegeen inay yihiin dalaaliin doonaya in ay barakaciyaan dadka deegaanka waxayna muujinayaan in walwal iyo sidoo kale cabsi xoogan ay ka qabaan dhibaato kasta oo halkaasi ka jirto sidoo kale waxay tilmaameen in xaalad kasta oo jirto looga baahan yahay inay ka hortagaan shakhsiyaadka Xuseen Raage Shiiraad iyo xubno kale oo xilal ka haya baarlamaanka Hirshabelle ayaa lagu eedeeyay inay doonayaan inay la wareegaan dhulal baaxad ballaaran leh oo ku yaala degmada warshiiq inta u dhaxeysa Cisiley iyo warshiiq waxaana taasi u muuqanaysaa in buuq badan uu haatan taasi ka taagan yahay degmada warshiiq oo sanadihii u dambeeyay ka faa'iideysanaysay isla markaana ay ku soo badanayeen dhismooyinka hoteelada dalxiiska iyo damaashaadka ayaa damac geliyay shirkadaha iyo sidoo kale shakhsiyaadka aan deegaanka ahayn balse adeegsanaya xubno deegaanka ka soo jeeda maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa degmada iyo deegaanka kale ee warshiiq ka tirsan ee ka dhacay falal nabadgelyada iyo sidoo kale deganaanshaha wax u dhimayo oo ay abuurayaan shakhsiyaad aan deganeyn kana tirsaneen
sameeyeen dadka degmada Warshiiq oo si gaar ah loogu tixgeliyo culimada halkaasi ku sugan ayaa waxa ay haatan si weyn kaga soo horjeedaan go'aan waliba oo haatan ay qaadanayaan shakhsiyaad fara badan oo la sheegay in dhibaato ay ku hayaan qaar ka mid ah dadka shacabka ee halkaasi ku nool. maamulka Hirshabelle ilaa haatan wax wara kama soo bixin inkastoo dhulboobkan haatan ka bilowday degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe ay si weyn uga soo horjeedaan dadka degmadaasi. beesha uu ka soo jeedo madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa waxa ay si weyn qaar ka mid ah ganacsatadeeda ugu dadaalayaan sidii dhulka degmada xeebeedka ee Warshiiq ay ku heli lahaayeen, balse beelaha degmada Warshiiq ayaa si weyn kaga soo horjeeda iyadoo laga cabsi qabo in dagaal gacan ka hadal ah uu halkaasi ka dhaco. inkastoo madaxweyne Cali Guudlaawe uu ku dadaalayo in uu shakhsiyaadka beeshiisa ee ganacsatada ah uu ku garabsiiyo dhulboobka haatan ka bilaabo kara degmada Warshiiq ee gobolkaasi. dhinaca kalena wararkii ugu dambeeyay khilaafka siyaasadeed ee ka dhexeeya Siciid Dani iyo sidoo kale Axmed Cilmi Karaash ayaa weli waxa uu yahay mid taagan, inkastoo kulamo kala duwan maalmihii ugu dambeeyay ay ka soconayeen magaalada Garowe. sidoo kale Siciid Dani ayaa shalaytu ku laabtay magaaladaasi. wararkii ugu dambeeyay ka imaanaya Garowe ayaa waxay tilmaamayaan in Siciid Dani Axmed Cilmi Karaash khilaafkooda uu soo dhamaaday, inkastoo khilaafkooda uu ahaa mid dhibaato badan sababay isla markaana shakhsiyaad badan oo ka agdhow Siciid Cabdulaahi Dani xilka laga qaaday. haddana wararku waxay tilmaamayaan in Siciid Dani weli dadaal uu ugu jiro sidii meesha looga saari lahaa Axmed Cilmi Karaash. khilaafka Karaash iyo Dani ayaana u muuqanaya mid saameyn badan ku yeelanaya gebi ahaanba ganacsiga Garowe iyo xaaladda guud ee qaybo ka mid ah deegaanada maamulka Puntland ayaa haatan waxaa ka jirta abaar baahsan iyadoo madaxda maamulka Puntland looga baahnaa samafalka bulshada qaybaheeda kala duwan ee deegaanada maamulkaasi. isqaqabsi ayaaba ka jira Puntland iyadoo isimada iyo xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi ay si weyn ugu dadaalayaan sidii wax waliba loo soo gabagabeyn lahaa, isla markaana caqabadaha iyo saameynaha kala duwan ee bulshada haysta mar waliba go'aan midaysan looga qaadan lahaa. lama oga wax walba sida ay noqon karaan, hase ahaatee madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya, halkaasi oo hooyadiisa xanuunsan uu ku booqday madaxweynaha maamulka Puntland. Siciid Cabdulaahi Dani ayaa dadka taxliiliya siyaasadda Soomaaliya waxay ku tilmaamayaan shakhsi aanan marnaba la fahmi karin go'aankiisa, isla markaana isgagidis badan. haddana waxa uu doonayaa in awoodiisa siyaasadeed ee markasta ay noqoto mid sareyso. hogaamiyaha Puntland ayaa noqonaya mid haatan go'aamo cad qaadan kara oo ku aadan mid daaqada gebi ahaanba looga tuurayo hogaamiye ku-xigeenka maamulkaasi. dhinaca kalena madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo kan Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa haatan waxay wadaan in ay heshiis ay la galaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxay yihiin kuwo caqabado xoogan kala kulmaya dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, inkastoo taageero badan ay u ahaayeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. kadib nidaamkii Farmaajo markii uu soo gabagaboobay, waxay haatan isku dayayaan inay heshiis hoosaad ay la galaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. waxaan la ogeyn wax waliba sida ay noqon karaan, inkastoo madaxda maamul goboleedyada qaar ay heshiis la yihiin madaxweynaha dalka. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka saaxiibayaal waa naga intaa daba daawaday. haddii aad janaalkeena runta wararka ku cusubtahay subscribe noo saar janaalka wararkeena leega shaarka iyo commentiga noogu dadaala. waad mahadsantihiin nabadgelyo.